kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa caasimada TV qodobada wararka ugu waaweyn aan idin haynana waxaa kamid ah madaxtooyada Soomaaliya oo qorsheynaysa xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay sharcigii muddo kordhinta oo baarlamaanku ansixiyeen warar kala duwan oo ka soo baxay halka uu ku sugan yahay taliyihii booliiska qaybta gobolka Banaadir Saadaq John xilli madaxweyne Farmaajo ka xayuubiyay darajadii ciidananimo Mareykanka iyo Ingiriiska oo ku hanjabay inay xanibaad ku soo rogi doonaan madaxda Soomaalida haddaysan heshiis ka gaarin muranka doorashooyinka ka taagan weerar khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Galgaduud intaasi waa qaar kamid ah wararka xilligan aan idin hayno imikana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanu guda galin wararkeena daawada hadaad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkana subscribe dheh hadaad horey noola joogteen share garee muuqaalka oo gaarsii saaxiibada kula midka waxaan ku bilaabayaa wararkeena madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay saxiixay xeerkii muddo kororsiga ah ee ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in xalay uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya saxiixay sharciga ay ansixiyeen xubnaha golaha shacabka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay saxiixay sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal oo baarlamaanka Soomaaliya ay aqlabiyad ku ansixiyeen taariikhdu markay ahayd 12 bisha Afraad 2021 ayaa qoraalkiisa uu ku yiri wasiir Dube beesha caalamka qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada saamilayda kale ee siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ayaa aad u diidan muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka beesha caalamka ayaa ku hanjabaysa cunaqabatayn halka siyaasiyiinta ku buhoobay madasha badbaado qaran ay saacadihii u dambeeyay ku goodiyeen inay qaadi doonaan tallaabo kasta ay uga hortagayaan muddo kororsiga hay'adaha dowladda madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay inay abaabulayso mooshin xilka qaadisa oo ay la doonayaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasoo iska diiday baa la yiri inuu soo dhaweeyo muddo kordhinta xildhibaanada Soomaaliya ay u sameeyeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada Galmudug Dr. Gacal oo ay gadaal ka riixayaan madaxtooyada Soomaaliya baa la yiri ayaa la sheegay inuu dhuusa mareeb ka bilaabay kulamo kala duwan si xildhibaanada ay xilka uga qaadaan madaxweyne Qoorqoor dhanka kale xildhibaano ka tirsan Galmudug ayaa xaqiijiyay in gudoomiye Gacal iyo ku-xigeenkiisa ay wadaan qorshahan balse inta badan xildhibaanadu ay ka soo horjeedaan si aan qatar loo galin deganaanshaha dowlad goboleedka Galmudug Qoorqoor ayaa waxaa xalay kulamo uu la qaatay magaalada Muqdisho qaar kamid ah madaxda midowga musharaxiinta sida madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaana kulankoodii ay kaga hadleen tallaabada ay qaadayaan maadaama dowladdu ay samaysatay muddo kordhin taa oo meesha ka saaraysa geedi socodkii nabadda Soomaaliya Qoorqoor oo dhawaan wareysi bixiyay ayaa waxa uu sheegay inuusan marnaba taageeri doonin wax muddo kororsi ah isagoo sheegay in wadada kaliya ee furan ay tahay wada hadal iyo in dalka doorasho loo jiheeyo taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John isla markaana isniintii xilka laga qaaday ayaa weli ku sugan magaalada Muqdisho saacada kadib markuu hadlay ayaa laga qaaday xilka waxaana durba soo baxay warar sheegaya inuu u baxay dalka Djibouti halka warar kalena ay tilmaamayaan inuu galay xerada Xalane balse labadaas warba waa la beeniyay ayaa loo xaqiijiyay in Generaal Saadaq John uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan meel u dhow garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho Saadaq John waxaa la jooga ciidan iyo gaadiid dagaal oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya kuwaas oo u go'ay xagiisa ila wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijiyay inuu haysto ciidan ku filan iyo gaadiid dagaal isla markaana aysan jirin cid kala noqotay ciidamadaasi isaga u go'ay saraakiil ciidan oo ka agdhow Saadaq John ayaa waxay sheegayaan in Saadaq uu dastuurku u ogol yahay inuu ka mid noqdo siyaasiyiinta isla markaana saraakiisha ciidanka haddii ay mar gaaraan darajooyin sare ay siyaasadda ku biiri karaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa darajadii ciidananimo ka xayuubiyay Saadaq John sidoo kalena guud ahaan xuquuqdiisa ciidananimo ayuu ka xayuubiyay Saadaq John ayaa hore u ahaa shakhsiyaadka ugu dhow madaxweynaha dowladda Soomaaliya hase yeeshee go'aankii uu qaatay isniintii ayaa muujiyay in ay siyaasaddu aysan ahayn saaxiib joogto oo ay leedahay dan joogto ah qoraal ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in tallaabadii muddo kororsiga ahayd ee ay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka oo muddo xileedkoodu dhamaaday
ay wiiqayso dadaaladii ay taageerayeen midowda Yurub iyo beesha caalamka si dib loogu soo dhiso Soomaaliya iyadoo loo marayo is-afgarad. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u codeeyay in si dhab ah loo kordhiyo waqtiga madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalka muddo 2 sano kadib ciriirigii ku yimid geedi socodkii doorashooyinka oo ahayd in la soo afjaro ugu dambeyn 8 Febraayo 2021. Tallaabadani waxay wiiqaysaa baa la yiri dadaaladii ay taageerayeen midowda Yurub iyo beesha caalamka si dib loogu soo dhiso Soomaaliya iyadoo loo marayo is-afgarad ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midowda Yurub. Qoraalka ayaa intaasi ku sii daray in beesha caalamku oo ay ku jiraan midowda Yurub waxay si isdaba joog ah oo cad u muujiyeen inaan si naba loo aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo dowladda iyadoo aan la helin heshiiskii dhinacyada doorashada ee 17 Sebteembar. Qoraalkan waxaa lagu sheegay in midowda Yurub uu xaqiiqsan yahay in qaraarkii ay gaareen xildhibaanada golaha shacabka uusan u adeegaynin danaha dadka Soomaaliyeed. Midowda Yurub waxa uu rumaysan yahay baa la yiri in ansixinta iyo saxiixa qaraarkii ay kala qaybin doonaan. Midowda Yurub waxa uu rumaysan yahay baa la yiri in ansixinta iyo saxiixa qaraarkan ay kala qaybin doonaan Soomaaliya soona rogi doonaan dib u dhacyo dheeri ah ayna khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo dariskeeda ayaa lagu yiri. Qoraalkan oo baaq loogu jeediyay hogaamiyaasha Soomaalida ayaa intaas lagu sii daray waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loogu laabto wadahadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin laguna saleynayo heshiiskii 17 Sebteembar. Ugu dambeyntii midowda Yurub waxay ku goodiyeen in haddii la qaadan waayo talooyinkan ay tixgelin doonaan tallaabooyin dheeri ah oo la taaban karo. Weli wararka beesha caalamka ayaan ku jirnaa. Dowladda Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay dalalka beesha caalamka kala shaqeynayso qorshe midaysan oo lagu wajahayo Soomaaliya kadib muddo kororsiga ay sameeyeen baarlamaanka iyo dowladda. Wasiirka Ingiriiska u qaabilsan Afrika James ayaa sheegay inay aad uga niyad jabeen go'aankii uu golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya muddo kororsiga 2 sano ugu sameeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya. James ayaa ku qeexay go'aankan mid aan xal u noqon karin ismariwaaga ka taagan hanaanka doorashada balse wuxuu waxyeeleynayaa buu yiri kalsoonidii hoggaanka Soomaaliya wuxuuna halis ku yahay nabadgelyada iyo mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay inay marar badan ku celiyeen inay ka soo horjeedaan hindise kasta oo hogaaminaya doorashooyin isbarbar socda kuwa hal dhinac ah iyo muddo kordhin loo sameeyo muddo xileedyadii hore. Waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha Soomaalida inay ka fogaadaan ficilo hal dhinac oo ka sii dari kara xiisad siyaasadeed ama rabshado. Waa muhiim in dhammaan dhinacyada Soomaalida ay deganaan muujiyaan ayna ilaaliyaan nabadda iyo amniga Soomaaliya ayuu yiri James. Haddii la waayo heshiiska hogaamin kara doorashooyin loo dhan yahay oo la isku haleyn karo oo la qabto ayadoo aan dib loo dhigin waxa isbedeli doona xiriirka ay beesha caalamku la leedahay hoggaanka Soomaaliya ayuu yiri. Ingiriisku waxay kala shaqeyn doontaa saaxiibada caalamka si isku mid ah dib loogu qiimeynayo xiriirka aan la leenahay iyo kaalmada aan siino Soomaaliya. James ayaa sheegay in wadahadallo wax ku ool ah oo dhex mara hogaamiyaasha Soomaalida ay xudun u noqon karaan xaqiijinta fulinta heshiiskii 17 Sebteembar ee hanaanka doorasho. Heshiiskaas oo ah kan kaliya ee sharciga ah ee saldhigga looga dhigi karo doorashooyinka Soomaaliya. Maleeshiyada hubeysan ayaa waxaa la sheegay inay rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaasoo maraya deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in rasaasta uu ku dhaawacmay hal ruux sidoo kalena gaariga uu burbur soo gaaray isla markaana falkaasi uu salka ku haya aanooyin qabiil oo waayadan ka jiray deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan Gorgor oo dhawaan la geeyay deegaanka Xanan Buure oo dagaal beeleedyo ay ka dhacayeen ayaa ku baxay halka gaariga lagu rasaaseeyay. Wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Gorgor ay saaka howlgallo kala duwan ka wadeen duleedka deegaanka Xanan Buure iyagoo baadi goobaya dadkii ka dambeeyay weerarkaasi. Deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa dhawaan ka dhacay dagaal u dhexeeya 2 maleeshiya beelood. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan kala dhex dhigtay maleeshiyaadkaasi halkaas ku dagaalamay. Warkii aad ka daawanayseen Caasimada TV waa naga intaan warkan warxiga ku kulmayno. Nabadgelyo.